Hey, assalamu alaikum. Today it's another video of making hilib. Ta-da! Making hilib. That's maxaan dhihi lahaa kan waa basbaas. And then halkan waxaan ku daray filfil iyo adiga liin dhanaan la shiiday. Yeah, that is the hilib. And then I'll let you know siduu u ekaado insha Allah. Waa hilib oo lo waaye. Okay. I'll show you. Waxaan ku dari doonaa insha Allah. It's gonna be عجيب I guess hopefully inshallah. Okay, hilibka horta waa karsamooya. It's cooking it. It's gonna take long time. Inaan aad u kariyo waa jile muddo qadhigo. But waxaan rabay inaan ku daro raqay. Raqayga marka waa loo sii qasaa. Biyaha la dhige muddo ha noqdo. So waxaan soo gaday maanta laba raqay oo kala nooc labadaba ogow Thailand waaye both kan iyo kan labadaba Thailand waaye labada raqaybo. This guy here it's kii Soomaaliya camal oo laga helayo dhadhankiisa so amazing waa iska cuni kartaa xitaa afkaaga. But this guy kan madaxaaga timaha kor kuu taagmaya hadda. It is so danan. It's good for suuga iyo waxda ku karinaysid whatever. But I don't know. Halal meat kan kasoo gaday. So it is crazy, but I enjoy this one. Kan is amazing. So waxaan isdahay, yeah. Waa sharingkeygii maanta hilibka lagu karinayo. Practice. Okay. Kii dhanaanka waa wareeda ahaa. Aan ku daraa maxaan dhihi lahaa asagaan qasaaya. So yeah, wax adiga waali ahna waa maadaama uu waali yahay oo laga baqaayo xoogaa yar leen ku shuba qiyaas. Yeah, I think intaas maybe it's too much but like I think it's good. So saa markaa biyaan ku qasanaa aniga hadda rash ima haayo. qofkii oo dhaqso rabo wuxuu suubin karaa maxaan dhihi lahaa biyo qandac uu ku shubi karaa laakiin ani hadda biyo caadi iska qabowaan ku shubay. So yeah, let's see siduu noqdo. Okay, hilibkii waa diyaariyey waa kana isagoo jilicsan waa kala qaybinaa. Hadda marka waxaan suubinaa maraqa hoose lafa shiishiidan dhici karta inuu ku jiro. So biyaha iyo maraqa iyo lafaha hoos ubadada oo ku gali kara gooskaan ka bixinaa insha Allah. Intaana ka soo miiray dhiidhiin. Let's wait. Yeah, maraqan inta haddaan ka miiray kana waa hilibkii goonida u soo guray. Shaqa culus baa ka socota waxa sugay mataqaaniin waxa waaye raqayga remember aan ku balanay. Okay, hadda waxaan rabaa inaan kala miiro waxa waaye kan raqaygii. So raqayga waa miira markaa miiro hadaad iska miirin waxa ku jiro lafa iyo kuukuus iyo waxaan ka wada kuukuuska qolofta marka waan soo miirayaa. Let's see. Ani waxaan karinayaa tiradan ka badiyaa ma ogtaa horta. Marka hadda potatoes badan waxaan ku daraa geedkii maxay ahayd raqayga habata hadduu bata xataa hawshiisa waa la yaqaanaa. So potatoes waa yaryaree isku tahmal waxayga waa 5 daqiiqo waxaan u yaryaree inuu dhaqso karsamo ka xataa maxaa waaye carrot waaye waxaan dhan waxaan u buuxinaa mataqaanaa freezer ka yaqaan markii la kariyo. Yeah, I hope it's gonna turn into perfect one inshallah. horta qofkii maraq maxaan dhihi lahaa geedkan raqayga ku daro cusbo dhan ma u baahno. Absolutely zero cusbo ma u baahno. And potatoes waxaan suubiyey skinka ma ka fiiqinin. It has the skin on. Wakas skinka ku yaala waa la jijibiyey ku jajaray marka hore biyaha ku qasee waxa dhanaa ka daadanaa. Markii horena wasaq ma ahayn waa la soo dhaqay laakiin ani waa sii dhaqay and then waa jajaray. So skinka waxa waaye ma arkino it's not bad. hadda potatoes waxaan ku daraa saliid ma ku darin cusbo nothing
so maraqii aan diyaariyo maraqana saliid waxaa u noqonaya kistaan yar waxaas yar oo saaran no saliid whatsoever yeah hal xabo barbarooni aan rabaa inaan qabadsiiyo bararac waa looga samraa kan waan usoo jarjarayaaye lamisi waxaan intuu marayaa shaqadiis it's cooking barbarooniga geedkan oo dhexdan oo laga bixiyo miraha laga jajafaa dabadan tibkan ugu horeeyana waa laga jaraa and then waxa kale ku jiro waa lagu darsadaa cuntada suugada way badan of course waa kasoo mirihian kasoo bixiyey and then miraha waxaa suubsan kartaa guriga markaad joogtid gurigiina wadankeena qorax iyo adduun isku leeyahay maasha allah just miraha le oo barbarooniga meelo ku kala 1 2 3 meelo ka kala ku kala ririd boom intaada before you know it wuu kuu soo baxaa insha allah saaxiibayaal waxa waa la beertaa okay so hadda waxaan ku darayaa maxay ahaatee geedkii oo aan idin dhahay barbarooni gudihiis dhexdiisa calooshiis wixii miraha aan ka daadaadiyey waa lagu daraa kabacdi potatoeska almost waa uu soo dhadhow yahay so intuuna bislaanin qayb waxaan ku daraa oo bahashaan maxaan dhihi lahaa carrotkaanaan ku daraa qayb okay hilibka bajaq waa jileec waaye so asaga karis badan maba u baahna so asagana waa kula sii gedinaa yo wala intuu jilcee lafii xataa waa kasoo babixeen that's almost done okay endingka waxa waaye frozen oo waxaan ku daraa oo bahashii kabsar caleen aan ku daraa oo jalaatada aan geliyay hadda ka hor markay kaa halaaba intayba kaa halaaba markaa soo gadatidba waa la dhaqaa waa la kala xiraa maca alfi salaama halkaasaa loogu tuuraa waa diyaarey intay maxaan dhihi lahaa weli aan laga dejinin almost aan ku daray then that's it markuu qaboobana barbaroonigaan ku daraa naagaa waxay tiri armaanto isma seeriyaan maagay aasaa madaxaygi laysiiyey hadda maanta waxaa isdhahay suugada badi intee ka qasaama ii sheegi kartaa sida loo qasi lahaa sheeka rabta hadda waaye okay hilibkii waa diyaarey sidaanuu noqday horta waxaan isdhahay wuxuu noqonaa wax la shiili karo laakiin waxaa la yiri dadka isma bedelaan ma ogta maamadu waa tii so waa kan lafahan waxa waaye lafo oo lo think neef yaroo ahaa aada u jilcay who can tell saasay ku fiican tahay inaa xoolaha adiga maxaan dhihi lahaa inaa qalatid inaa ogtahay xoolaha so waxaa soo gadatay you don't know inuu neefka yaryahay in kale so barbaroonigiina waaweynkaasaan ka dhigay it's kind of dry because all the juicy part digsiga ugu weynaaday so it's down here so let me see see the juicy part is right there laakiin digsiga wuxuu igu noqday mataqaanaa too deep mijida this is so good suugadan baxaan dhihi lahaa iyo maraq iyo whatever you call it waxaan dhihi lahaa waxaa lagu cuni karaa anything ani waan ka jeclaan lahaa inuu more oo gaduudkii uu yahay laakiin tastiga it is actually amazing you can eat anything ani cuntada waxaan u badiyo waxay tahay cunto anything ku cuni karta soo kuulama eko cunto oo baasto oo waxa waaye aan suugo lahayn like dad badanaa waxay jecleen yaanyada gaduudka so this is perfect rooti aa ku cuni kartaa muufo soor maxaan dhihi lahaa masage it's amazing ala kulli xaal that's what it is it's too much so I'm gonna show you waxaan ku suubinayo inaa saa u kala xirxiraayo next insha allah okay finally bacyaalahan aan ku goray digsiga waa ka saaray finito
ya waa kana waxaan u kala xirxiray how many days intii aan kariyey intaanay noqotay si qofna maalin walba ma cunayso laakiin qof walba markuu baahan yahay uu soo baxsana freezerka la sheekeysana waa shaqo kuu geeyey maalin walba daily shaqo maxaa ku geliyey anaga wadamo qaboobaan joognaa so cunto fresh daily aa ka bixi karo nobody maxaa lagu barar la iskugu ridaa iyo jika taagni waa dhamaatay ta